بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. maanta waa maalin kale oo murugo leh oo dhibaato xoog leh ay gaartay shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis meel kasta uu joogo. walaalo qaali ah oo abriye ah oo nolol maalmoodkooda caadiga ah qof walba uu ku mashquulsanaa oo saaka gurigiisa ka soo baxay, mid waxbarasho u socday, mid suuqa u socday, mid gaadiidku ku xamaalanayay badeecadu suuqa geysanahay watay, dhammaantood mid musaafir ahaayo meel dheer ka yimid mid u socday intaba ayaa la kulmay nasiib darradaas meesha ka dhacday. qolooyinkaas arxalaawayaasha ah ay meesha ku sameeyeen argagax xanuun badan, dhib badan. waxaan u tacsiyeynaynaa annagoo ku hadlayno magaca madasha xisbiyada qaran iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed, dadkii ehelada ahaa iyo qaraabadii kuwii ay jeclaayeen saaka halkaa ay ku shahiideen. waxaan leenahay allah u naxariisto, sabir iyo iimaan allah naga wada siiyo dhammaanteen, ayagana jannadii firdawsa allah ka waraabiyo. inta dhaawaca ah oo aan soo aragnay maanta oo isbitaallada yaallo iyo kuwa aan gaari weynay ee isbitaallada kale faraha badan oo magaalada yaal ama guryaha loo qaaday, intabana waxaan leenahay ilaahay ha u boogadhayo. waxay ahayday arrin runtii aad iyo aad murugo leh, xanuun badan. dad Soomaaliyeed nooc walba leh, carruur leh, wiil sanad jira oo dhaawacaan soo aragnay, hooyadiisna ay dhimatay, asigana dhaawaca 1 sanana jiro cimrigiisa. waxaan soo aragnay islaan waayeel ah oo sidoo kale dhaawaca. waxaan soo aragnay arday jaamacad u socday oo dhaqaatiirtu berri dalkan daaweyn lahaa qaarkood ay yihiin oo ummaddan caafimaadkeeda ka shaqayn lahaa, qaarna ay dhinteen oo la waayay, qaarna ay dhaawac yihiin, gubteen, lafuhu ka jajabeen, madaxa dhibaato ka gaartay. yacni arrin aad iyo aad u xanuun badan oo muuqaalkeeda runtii aad wax looga naxa ah ayaan soo aragnay. waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed inta naga dhimatana iimana allah naga siiyo, inta noolna inta bukaankana ilaahay ha caafiyo. masaladu waxay tahay dadkaas Soomaaliyeed ee dhintay, kuwaas waa kuwii arxanlaawayaasha ah oo ugu talagalay dadka Soomaaliyeed xaggeed joogtaa isgoyskii waxaan taaganahay maxaanku idhaahday ex control afgooy. maxaa meesha xaaladeedu say tahay? waa meel isku xiran oo la duuban yahay oo dad baa fara badan iyo baabuur badani meesha ay dhooban tahay. meel ka fiicanba ma lehe meesha isku qarxi bug dadkii. yacni nin hadafkiisu uu yahay dadka inta ugu badan in la dilo, inta ugu badan in la dhaawaco, oo hantida ugu badan la burburiyo. yacni cadaawad ka weyn oo ummad loo jiritaan waayo. qofaa la dilay, labaa la dilay ma aha, jiritaanka ummadeed waayo waxa ay nimankaan argagixisada oo nabaddiidka ah ay ku socdaan. kaasi marka waa cadowgaas, waa garanayna. ummad kastoo adduunka joogtana cadoway leedahay, noocuu yahay, mid yasiran, mid dhib badan, noocuu doona ha ahaa. laakiin haddana ummad walba daday u dooratay inay cadowgaas la dagaalamaan oo dhibkiisa joojiyaan. haddii ay jooji waayaan xataa ay yareeyaan oo maxaanku idhahdaa de ummadda u dhibaatadooda waxayso. aad iyo aad waxaan u tabaynaa doorka dowladda inuu meesha gaabis xoog leh inuu ka jiro. ma aha siyaasad, ma aha magaciisi, laakiin madaxtooyada agteeda iyo maxaanku idhahdaay hotel maxaanku idhahdaa SWAL wixii ka dhacay maalin weynta waa ogeynay, waa aragnay, waa u joognay. meeshii magaalada inay u amni badnaatay ahayday maantana meesha wixii ka dhacay waa ognahay. ma eedaynayno, ma dhaliilayno, nalama liitaan wiilasha ciidamada ah ee amniga jooga ee qaarkood dhimanaya, qaarkoodna dhaawacayo maalin walba dhimanaya ee dhaawacmayo. waa shuhada, waa geesiyiin, waxay mudan yihiin qadarin iyo waxweyn. amnigeenna meesha uu ka dayacan yahay waa dhinaca hoggaanka iyo siyaasadda waay. amnigu siyaasaddaa hagto siduu u shaqaynaayo iyo wuxuu waxaynaayo. meel fogow dalkan ka yimid, meel fogoo dhib badanuu ka yimid. horumara badanaa la soo sameeyey, waana lagu jiraa. dowladda dadka inay dhinacna ka daciifiso
ودقدقاقودي iyo dhaqaalahoodii iyo hantidoodii iyo waxoodii iyo isu socodkoodii ay carqaladayso ciriiri geliso ayadoo ugu marmarsiinayso amnigii baan sugaynaa amnigiina dadkuna ay ku dulqaateen amnigaan sugaynaa maadaama la yiri in ay ka dulqaataan xorriyaadkoodii qaar ka mid ay ka tanasulaan ay ogolaadeen oo ilaahay maanta ciddii dano jidka taagan oo qaylinaysa aan la arkayn tanoo kale haddana inay dhacdahay waa laba geeriyaad waaye waa xanuun kaloo sii dheeri ah waaye argagixisadu waa joogtaa dagaalay dalka ku haysaa ma inkirayno iskama indhasaabayo laakiin niman dagaal lagu haayo oo cararaayo oo tuuganimo wax ku samaynaayo inay yihiin iyo niman daanshoonaayo oo beledkan wixii baasiyii la aruursaday meel walba usii socdo waxaynahay gaabiska aan annaga aan tuhmayna inuu meesha ka jiro arkayna kaas waaye dowladda waxaan ugu baaqaynaa siyaasadeeda amniga dalka guud ahaan gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda ee magaalada muqdisho dowladdu waa inay wax ka beddeshaa sidaan ma ahaan karto kuma sii socon karto maalin walba boqolaal qof oo dhintay ma arki karno maalin walba dad gubtay oo la kala garan laayahay inuu nin ah ina naag eed la kala garan laayahay oo maxaan ku rahay meydkoodii oo madow meel uu yaallo inaan soo aragno wax aad iyo aad loogu farxi kara maaha wax aad iyo aad loo jeclaysan kara maaha wax laga aamusi kara maaha cadow waaye nimankan maxay u jiraan ma aha su-aasha maxaa loo dhammaystiri waaye maanta oo loo baabi'i waaye hal biri ma ahan laakiin sida loola tacaaloohayo si ka habboon oo loola tacaali karaa jirto si ka si fiican oo loo qaban karaa jirto dowladdu gaabisaa meeshaas ka jiro sidaana waxba kuma socon karaan cadow waaye dad waaye waxa dadka laynaya dadaa celi karo dhagax jidka la dhigay iyo carro meel la tuura ma celi karaan dadku dadaa celi karo fikiraa celi karo dadka soomaaliyeedaa celi karo oo la mobilize gareeyo oo loo tuso maslaxadooda la dhaqaajiya celi karo dowladdu dib u eegis ballaaran ha ku samayso siyaasadeeda amniga dalka guud ahaan siyaasadda lagula diriraayo argagixisadan ummadda dhibtay nabaddiidka ah guud ahaan gaar ahaan caasimadda magaalada muqdisho wejigii maxaan ku rahdaye ummadda iyo dowladnimada iyo dalka iyo dadka soomaaliyeed ah dhaqaalihii isha ay dowladdu ku noosho dhaqaaluhu ka soo gala ah muuqaalkii iyo wejigii dadka soomaaliyeed ah aragtida amniga ee dowladdu hays wax ka beddesho dad amniga mas-uul ka ah oo deegaankan iyo dadkaani ay doorteen ay fursad ha bixiso dowladdu dadku dad mas-uulahay ayagu mas-uuliyadda saaraan ay eedaan ay ku yeeshaan dadkan fursaddaas ha bixisaan leenaha dowladdu gobolka banaadir dowladda dhexe annagaa soo joogi jirnay shalay kuwaanaa joogo dhammaan dowladda sidaan si ka roonay annaga waxaan aaminsannahay markay imaanaysana sidaan ay xaaladu ka roonay dowladda maanta jirto haddana ay ka roonaa karto ay sii soco karto horumarku maalin walba meel inuu sii joogo hore usii socdo waa magaalada dadka waa ku dhibban yihiin danyartii oo dhan noloshooda ciriiriyay sii gashay meelihii iyo qaabkay u noolaayeen oo dhan baa ciriiri galay amnigiina la sugayaa ayay ku seexdeen ay ku oggolaadeen in ay maxaan ku rahdaay dadka intii ugu tabarta yareeday ay noloshoodii ay maxaan ku rahdaay ay ka tanasulaan wax badan oo sidai ay ku helayeen nolol maalmoodkeeda ahayd ma muddo inay maanta haddana dhaawac ay dhayaan iyo meyd ay duugaan iyo mid la waayo oo meelu ka baxay la waayo haddana ma muddo mas-uul ma ammaan helin oo maalin hore meeshii la galay wixii lagu bartilmaamaysanayay mas-uuliyiin iyo siyaasiyiinay ahayd shacabkii caadiga ahaayee suuqa muxuu ahay khudaarta iyo muxuu ahay mooska iyo baalkii muxuu ahay barbarooniga u sidayna ma nabadgelin ardaygii saake hooyo inta u soo quraacday canjeero ay soo siisay orod maalmo ii aad iskoolka adigana orod jaamacadda ii aad ay tirina ma nabadgelin arrintaasi shilaa iska dhacay baabuuraa meel ku qarxay dadaa ku dhintay ma aha waa ka mug weynta dowladdu waa isku noqoto wixii dhacaad mas-uul ka tihiin keliya ma ahan waxaan leenahay waxa soo socdaa muhiima berri waxa dhici doono ilaahay idinkiis ilaahay ma keeno ilaahay ma qadaro ilaahay idinkiis laakiin diyaargarowgeena
in sida hadda ku socday istiraatiijiyada amniga lagu sugaayo dowladda waa in ay wax ka beddeshaa dadkan gobolka banaadir ku nool waa in fursad la siiyaa amnigooda ay cod iyo talo ku leeyihiin waa in la siiyaa sarkaal dowladda ay soo magacaawday bas kuma habbo kuma filla dowladda waa joogtaa xoog waaye xoolay haystaa caqli haystaa kaalmo caalimi haystaa laakiin dadka doorkooda yaa maqan dowladdu dadka door ha siiso gobolkan banaadir dadka dad ay wacdeen oy wakiisheen ay u dhiibteen mas-uuliyadda oo biri ay kala noqon karaan markay wax dhacaan waa in dowladda fursadaas ay bixisaa dadkana loo ogolaadaa in jira mar kale inta dhimata allahu naxariisto inta dhaawaca allah bogsiiyo inta lala yahay maqalkooda iyo muuqaalkooda ilaahay meesha jiraan soo iftiimiyo aad iyo aad ayaan arrintaas uga xunnahay waa ka murugaysannahay waxaan soo aragnay isbitaalka soo aragnay wax aad iyo aad loogu farxi kara ma aha wax qof damiir leh oo uu ahaay raalli ka noqon kara ama maxaan ku raadaay oo caadi noo caadi u arka maaha oo xanuun badan isbitaalka kuwii maanta qarxay iyo kuwa qarxayda kasii horreeyo qaarkood gaalkacay laga keeno qaarkood maxaan ku raada gobollada kale laga keenayaan meesha kusoo aragnay qaraxba qarax soo gaaray xanuunka ay leedahay waa taas ah annaga weliba waa rabnaansha hal isbitaalaan galnay oo waqtiga inoo saaran yaalkan hal isbitaal dhaawac isbitaallo kaloo yaalla guryo badan oo yaallaa meel walba yaalla allah caafiyo allah bogsiyo inta dhimata allah u naxariiso aad iyo aad umahadsantiin adinkuna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله ما أخذ وما أعطى وكل شيء بقدر مسمى. سيدا مكوين حسن أو شيء على ما أنا أمر إن شاء الله عليه. إذا تعزينا دارهم واردين على كبير يدون بس ما تقرح كل شيء يقول وعملها تكبر بطي. كود أنت وحالنا على الحرس كود وعن الله خير. أنت تكبر بطنا وحالنا بدل خير المحسن. runtii madaxweynuhu sida uu tilmaamay waxaan soo aragnay wax xanuun badan dad midabkooda la kala garan yahay dad dhaawaca iyo dadkii suuqa u aaday ka dhinteen iyo dad aan la aqaanin ilaa hadda dadkoodii aan la eegin waa garan kartii muruurka dalka uu ku jiro qof maanta dhintay iyo qof dhaawac labaduba waa culays guriga ay ka baxeen culays u fiiyo qaran maanta u taagan عاوننا أنا ونمط صومع سيدا ما تقانا ضد صومع لدوية قيمة وأنا هذا لا يعني ما بس واحد رفع إني باقي ضد الصومالية أنا ضد في الميدان لجرب استاذه ده كان مشكلة على النار مشكلة على النار هي مشكلة على الشباب القاعدة وأنا الرجال كبين شغالين في إسلام kusoo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed si macna la'aan marka runtii filkaas aad u foolxun waa ambaareynayna waxaan leenahay diinta islaamka ma qabto arrintaas dadnimaduna ma qabto maxaan ku yidhaahdaa soomaalinimaduna ma qabto qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku galaayo qof miskiina oo risku doona dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa oo ka baan sheegay diinta ilaahay oo ku baan ku abuurtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano dhalinyaradaas wixii la marin hadaadiyana waxaan u sheegaynaa arrintan diinta islaamka waa ka fogtahay dhiig muslim jannada lagama galo cadaab baa lagu galaa war jannada haddaa rabtiin beerafasha masaajidda aada qur-aanka barka ummadda kaalmeeya laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay caruurteedu ay jaamacada dhamaysay ama u socotaa ka odeysiisiin ama aabba ka odeysiisiin ilaahay uguma dhawaanaysiin marka afkaartaan afkaar diineed ma aha waa afkaar lagu xumaynayo diinta islaamka afkaar lagu ciqaabayo dadka Soomaaliyeed aan aaminsanna inay ka timid dibadda inay ka dambeeyaan dad ummadda cadow ah intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo shabaab iyo alqaacida maanta dalkan ugu marayso madaxweyne xasan waa soo joogay anigu waa soo joogay waxaan aaminsannaha shabaab inay ka xoog badnaayeen awoodda Soomaalida u diyaarsan ama dowladda Soomaalida u diyaarsan inay intaan ka yareen kaalmada laga helayo ajnabiga inay intaan ka yareen haddana sidaan si ka habboon maarayaan aaminsannahay magaaladu dhan waa wada xiran tahay waxaana lagu marmarsiyooda arrintaas arrin amni inay tahay
marka la fiiriyo qaraxii Zooba ka dhacay iyo qaraxan marka la isku daro tirada ku dhintay aad u badan waxa keenayana waxa waa istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugo oo u suura gelinaysa cadowga inuu mar walba uu doorto xilliga uu rabo iyo meesha uu rabo in uu doorto oo dadka ugu badan uu rabo marka dawladdu waxay kaalmeynaysaa argagixisadu inay fuliso howlaheeda argagixisanimo sida ay jeceshahay mase waxaa loo doortay dawladdu inay ka hortagto arrintaas waxaan u malaynaa jawaabta waad ognahay marka waxaan rabnaa dawladda inaan ugu baahno waa ka gaabisa mas-uuliyaddeedii يعني استراتيجية أمنية أو فشلت الحل هره إن 3 سنة أي صعود ومعلم والبدأ حول الحين خلوا لأنها مرة عرفت أشتري اللي بدلوا سراكيش أمنية إذا بدك مسؤول كأمن وأي حساب دولة مين وراح حساب صرت أقل مع معلم والبعين قرح دعوة وهذا أنا قلت عن له حسابنا وقلت سؤال له ويدينا يسجل أنا فسحنا كنت وحيوان لقنا حوالي كمل marka dadku ay ka hadlaan warqaxaantan laga qaado ummadana xal loo keeno in laga xidho si dad arrin laga naxawaa waxa kale oo rabaa naqdo muhiim ah in aan saddexda sano oo soo dhaafay waxa socota burburin ciidamada dalkiisa wax laga aamusi kara ma aha waqtiga la soo guliyay dadka ma taqaana ciidanka ku jira duruuf adag ay ku soo dagaalameen duruuf adag ay ku soo dulqaateen naftooda ay u dagaalameen in maanta loogu abaalmariyo waxa tiin ciidan qabiil la idin ma baahna kuwa kala la sameeyna ee waliba iyadoon walba ciidan la diyaarsan kala wareega shaqada maanta waxaanu ay dhacaan inta waxa looga xumaado waay 3 sano ciidamadii soo tababarteen aawal maxay qabtaan ciidamadii bay ku wareejiyay xagaad ogti maalin walba dagaal la faashila in anta u dirtiin oo iyaga madaxa isu galisay iyaga la soo laayay oo hubka laga qaato oo hubkaas dad umada lagu laayay waxay sababtay dawladdu in dadka Soomaaliyeed ee ku magaalada Muqdisho la canshuurta lagu dibo qarax maanta ka dhacay ex control waa canshuurta magaalada Muqdisho laga qaado yaa lagu diray dadka aan soo aragnay kulligooda waxay ahaayeen dad u soofay inay ama soo helaan noloshoodii ama wax soo bartaan dawladda waxa laga rabo waxa waaye dadkaas inay protect garayso inay ilaaliso yaa laga rabo ma dhicin arrinta ولنا دولته ما كلها هذا وحيلة يعني ما كانان واحد معنا له اللي طلع كان والمقالة والله ودي تجوز 15 حبيت كسر العز هذا الوالد قرح وادعي يبغى دعي لكن سلام ما هي مقالة واحد صفر هذا كلام قسم من سامح حوالي دل كان راس كل كسر هو بهاي بالمجلسين وهو بهاي كسر العز ومدي مجا مدح إنه يسوق الدولة إنه ذاتك لا دركت وقف البلد قالوا وهي كان دولتنا مدنية بركت وهي كان الشباب يفصل لس وهي كان لقى القبيلة إنه يحوجستان ذاتك وهي الحكم تجان على الشباب ما بينت يا مسوهرنتي ما لحظة كشف رئيس المجال هذا مقبل الشقار كان على الشباب أصلا ده بدأ أقول دولتكم أنا بقرن السودان ومن الصومال لو اشتاقت أصل الدولة مهمة دولتنا أنا وحنا آمن سنة وإن لو يجي أسواش هذه أي سنجر العد ويدينيس شعب كويدينا وحاول يستاجي إن شعب فينا نبابلنا بنام بحان دولتنا سؤالها يريدنا هذيك الدولة دواني كجرتها واحد عيب وما سنتين السلام عليكم.